assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawade wakhti kastoy kuu tahay oo wanaagsan, allah inaga aqbala acmaasha suuban. waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa barnaamijkeennii buugga zaad iyo sahayda ramadaanta qaybtiisii afaraad. qoraagu waxa uu ka soo waramay hodanka jannada labadii saxaabi ee ugu horreeyey. saxaabiga saddexaadna waa cabdiraxmaan bin cawf. dagaal ka mid a duulaanadii ay muslimiintu qaadeen ayaa uu nebigu salaallahu calayhi wasallam wuxuu ku soo daahay weysada. markaas ayay saxaabadii salaadii oogeen, waxayna imaam ka dhigteen cabdiraxmaan bin cawf. markii uu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam, gadaal ayaa uu ku tukaday. markii salaadii la dhammeeyeyna waxa uu yidhi, waad asiibteen inaad ka dhigataan cabdiraxmaan bin cawf imaam. waxa uu sidoo kale yidhi, nebina ma dhimanin ilaa uu ku daba tukaday nin saalix ah oo qoomkiisa ka mid a. cabdiraxmaan bin cawf samadana waa ku aamin, arladana waa ku aamin. waxa uu ka mid ahaa dadkii u soo hor islaamay. nebigana salaallahu calayhi wasallam waxa uu kala qayb galay dhammaan duulaanadii uu qaaday. dagaalkii uxudna wuxuu ka mid ahaa muslimiintii sabray ee sugnaaday. waxa uu u haajiray xabasha si uu diintiisa u ilaashado. markii dambena waxa uu yimid madiina. waxa uu ahaa nin saalix ah oo isduldhig badan, mararka qaar addoomihiisa lagama garan jirin. cabdiraxmaan bin cawf markii uu maka ka soo hijrooday waxa uu ka tegey maalkiisii oo dhan. madiine ayaa uu yimid, waxaana uu nebigu la walaaleeyey sacad binu rabiica oo ka mid ahaa madiine dadkii ugu maalka badnaa. sacad waxa uu u soo bandhigay inuu siiyo maalkiisa kala badh, isaguna waa uu diiday oo waxa uu ku yidhi, allaha kuu barakeeya maalkaaga ee suuqa uni tusi. sidaas ayaa uu ku bilaabay ganacsigiisii waxba la'aan. madiina isagoo faqiir ayaa uu yimid, waxaana uu yaqiinsaday sidii uu nebigu salaallahu calayhi wasallam uga magan geli jiray faqriga. markaas ayaa uu shaqeeyey oo uu ganacsaday ilaa uu noqday dadka madiine ugu qanisan. markii la weydiiyey sirta ka dambaysa inuu ganacsigiisu guulaysto, waxa uu yidhi, ganacsiga adduunye maaha ganacsi. anigu maalintii ayaan dar ilaahay 100 u bixiyaa, ilaahayna habeenkii ayaa uu 1,000 igu arsaaqaa. ganacsigiisu waxa uu u dhexeeyey xijaas iyo shaam. waxa uu ka shaqayn jiray xoolaha iyo fardaha, waxaana uu lahaa dhul iyo dhismayaal iyo beero. markii ay hantidiisu kobacday waxa uu jihaadka u diyaariyey 1,000 faras. waxaa la sheegaa inuu hal maalin 30 addoon ilaahay dartii u xoreeyey. duulaankii tabuug ee aynu ku soo xusno sheekadii cuthmaan bin cafaan, isaguna waxa uu bixiyey maalkiisii kala badh. waxa uu biilin jiray xaasaskii nebiga ummahaatul-mu'miniin dhimashadii xabiibka salaallahu calayhi wasallam kadib. maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu iibiyey dhul qaali ah oo uu lahaa, lacagtiina waxa uu u qaybiyey xaasaskii nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. waxa uu ka mid ahaa cabdiraxmaan bin cawf saxaabadii ugu hantida badnaa. hor ilaahayna waa uu u bixin jiray ilaa la odhan jiray reer madiina waa ciyaalkii cabdiraxmaan bin cawf, yacnii cabdiraxmaan bin cawf ayaa beeliyey reer madiine oo dhan. markuu dhimanayey waxa uu dardaarmay 50,000 oo diinaar in jihaadka lagu bixiyo. reerkiisana waxa uu uga tegey hanti fara badan, xataa dumarkiisa waxaa mid kastaba dhaxashay 80,000 oo diinaar. waxaa kale oo uu dardaarmay asxaabtii reer beder mid kasta in la siiyo 400 oo diinaar, waxaanay ahaayeen 100 nin. waxaana ka mid ahaa khaliifkii mu'miniinta ee cuthmaan bin cafaan, isaguna waa uu qaatay isagoo sharfaya saxaabigaas. allaha ka raalli ahaadee waxa uu ka mid ahaa hodankii jannada. saxaabiga afaraad waa dalxa bin cubaydillaah. carruurtiisa waxa uu ugu magacdari jiray ambiyada, waxaanu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee islaamay. nebiguna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxa uu odhan jiray, qofka ay farxad gelinayso inuu arko shahiid dul lugaynaya adduunyada ha eega dalxa bin cubaydillaah. waxa uu ka mid ahaa madaxyaweyntii qureysheed. isaga iyo reerkiisana waa la iska ilaalin jiray in lala colaytamo. markii uu islaamay uma haajirin xabasha, waayo cid ku dhacaysaaba may jirin. waxa uu ahaa ganacsado u kala safra shaam iyo xijaas. mar uu ka soo laabanayay safarkiisii shaam ayaa uu la kulmay nebiga salaallahu calayhi wasallam iyo abubakar oo u hijroonaya madiina. markaas ayaa uu siiyey dhar shaam uu ka keenay. markii uu maka soo gaadhay waxa uu soo kaxeeyey abubakar ehelkiisii, iyagoo reer qureysheed oo dhan u jeedaan, manay awoodin inay wax dhiba gaadhsiiyaan ama ay hijrada ka hor istaagaan. waxa uu difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud ee ay muslimiintu ilaa gacantiisa laga asiibay. jirkiisana waxaa ku yaali jiray 70 dhaawac oo difaaca rasuulka salaallahu calayhi wasallam dartii u soo gaadhay. nebiguna salaallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, maalintii uxud cid ii dhoweyd may jirin, jibriil oo midigtayda taagnaa iyo dalxo oo bidixdayda taagnaa mooyaane. dalxa bin cubaydillaah waxa uu muslimiinta ku dhex lahaa fadli aad u weyn. nebiguna meelo badan ayaa uu ku ammaanay. waxa uu ahaa hantiilo hodan ah oo deeqsi ah. dadku waxay odhan jireen, dalxa waa nin bixin badan oo dadka wax siiya, xataa iyaga oo aan weydiisan. waxa uu wax siin jiray qaraabadiisa iyo qabiilkiisa oo dhan. deynta ayuu ka bixin jiray kuwa iska bixin kari waaya, kuwa guurka kari waayana wuu u guurin jiray. xaasaskii nebiga salaallahu calayhi wasallam waxa uu siin jiray waxay u baahdaan markii uu nebigu dhintay kadib.
طلحة بن عبيد الله markii xagga Ilaahay loo oofsaday waxa uu ka tagay 2 milyan oo dirham iyo 300 oo wiqiyadood oo dahab ah waxaana lagu qiyaasay hantidiisa dhuleed iyo dhismeed 3 milyan oo dirham hantidiisa hadii la isku daro laguna qiimeeyo lacagta aynu naqaano waxa uu dhigmaysaa 580 milyan oo dollar waxa uu ahaa hodankii jannada adduunkana waxa uu ahaa hantiile maalkana naftiisa kuma koobin ee dadka ayaa uu hibeeyay oo uu sadaqeeyay waxa uu jannada kula jaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu yiri rasuulku Talxa iyo Zubayr jannada ayay jaarigu leeyihiin haddaad halkan ila soo gaadhay waad mahadsan tahay qaybaha dambana la soco salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh